وزير الدولة وزارة waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland oo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta si rasmi ah uga wareegay hay'adaha Mareykanka ah ee Aaraha iyo Life kaalmo buugaag oo ay ugu soo deeqeen guud ahaanba gobolada Togdheer, Sool iyo Sanaaga. isagoo wasiir dowladda wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland uu tilmaamay inay guud ahaanba gaarsiiyeen buugaagtan ka timi hay'adaha Mareykanka ah ee Aaraha iyo Life dugsiyada sare ee dalka Soomaaliland goboladiisa iyo degmooyinkiisa oo dhan. waxaana uu aad ugu mahadceliyay wasiir dowladahani hay'adahaasi Mareykanka iyo wakiiladooda u fadhiya Soomaaliland oo ku tilmaamay shakhsiyaad aqoon-yahan ah oo u dadaalay dalkooda isla markaana garashadoodu ay noqotay in guud ahaanba kaalmooyinkaasi lagu soo hagaajiyay madaxda uga yihiin Soomaaliland ay gaarsiiyaan si siman gobolada dalka Soomaaliland idilkooda. wasiir dowladda oo kulankan hadal kooban ka soo jeediyay ayaa waxa uu ku dheeraaday baahida gaarka ah ee u baahan yihiin ardayda reer Soomaaliland waxaana hadaladiisa kamid ahaa wallahi maanta waxay inooga baahan yihiin waxay halgan bay inooga baahan yihiin waxay inooga baahan yihiin dulqaad waxay inooga baahan yihiin inaan u dhabar adeegno si aan u hagaajino quality-ga tayada ardaydeena maanta. sarkaal sare oo lagu magacaabo Ibrahim oo aqoon-yahan ah oo hay'adahaasi madax ka ah ayaa waxa uu halkaasi ka soo jeediyay khudbad dheer oo ku hadlayay dareenkiisa shakhsiyadeed iyo ka guud ahaanba wakiilka kaga yahay hay'adahaasi. waxa uu si gaar ah ugu mahadceliyay hay'adaha maalgeliyay buugaagtan ee hormuudka u yihiin Aaraha iyo Life. waxaana uu sarkaalkan isagoo ku hadlaya luqadda afka Ingiriisiga hadaladiisa kamid ahaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hay'adaha maalgeliyay buugaagtan ee Aaraha iyo Life oo ka tirsan dalka Mareykanka. buugaagtan qiimahoodu waxa uu dhan yahay buu yidhi 8 milyan iyo 400 oo kun oo dollar waxaana la gaarsiiyay dugsiyada sare ee ku yaala buu yidhi Soomaaliland. isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Togdheer Cabdi Axmed Siciid ayaa isagoo ku hadlaya luqadda afka Ingiriisiga waxa hadaladiisa kamid ahaa waxaan dhawaaqdeeda ugu yeerayaa kulana hadlaya dadka qurba jooga ee ku dhaqan qaaradaha Mareykanka, Yurub, Afrika iyo Carabta. We are calling them, please come back to your country. kaalaya dhulkiina hooyo ka qayb qaata horumarintiisa iyo iskaashigiisa. Please contribute to your country. dayaal iyo waxgarad iyo maamulayaasha dugsiyada iyaguna munaasabadan ka hadleeya guud ahaanba u mahadceliyay hay'adaha Mareykanka tilmaameen in sida ugu habboon uga faa'iideysan doonaan buugaagtan loogu soo deeqay oo ay ku tilmaameen guul ballaaran oo u soo hooyatay ardayda gobolkan iyo gobolada Sool iyo Sanaag oo qayb ka ahaa barnaamijkan buugaagta. maaha markii ugu horeysay hay'adaha Aaraha iyo Life ay soo gaarsiiyaan magaalada Burco buugaaga. bil ka hor ayay ahayd markii jaamacadda magaalada Burco ay soo gaarsiiyeen container dhan oo buugaag ah oo heer jaamacadeed ah. waa Cabdisataar Sabri, TV-ga qaranka Soomaaliland, Burco.